ma isweydiisay sababta apps-ka ama websites-ka qaar ay u yihiin kuwo aad u dhaqso badan oo aad si fudud u adeegsan karto kuwana ay u yihiin kuwo aad u culus oo waqti badan sugayso si aad u adeegsato wuxuu yahay farqiga u dhaxeeya labadaas nooc ee websites ama apps ah muuqaalkana maanta waxaan ku soo qaadanaynaa waxyaabaha ka dhiga apps-ka kuwo fudud ama culus soo dhawaada dhalinyaro aynu ugu horeyn wax ka tilmaamno sababaha keena in apps-ka ama websites-ku noqdaan kuwo culus oo waqti badan ay ku qaato inaad adeegsato waxaan soo qaadan karnaa kowlka apps-kaas ama website-kaasi oo isku dhex daadsan haddii kowliskaad ku dhisayso appkaas ama website-kaas uu yahay mid aad u badan oo isku dhex daadsan taas waxay qayb ka qaadanaysaa in appku isticmaalo resource badan oo uusan baahnayn taasina ay cuslayso shaqadiisii qodobka labaad ee saamaynta ku leh culayska appkaasi ama website-kaasi waa inuu isticmaalayo files aad u badan sida sawirro fiidiyoyo iyo waxyaabahaas la midka ah haddii ay tiro ahaan badan yihiin waxay culaysin karaan appkaasi qodobka saddexaadi waa designka database-ka haddii appkaas ama website-kaas uusan lahayn optimization ama caching oo kale oo appkii uusan si fudud u heli karin waxyaabaha uu u baahan yahay oo ay waqti ku qaadanayso waxay taasi culays ku keenaysaa isticmaalihii appkaas ama website-kaas okay haddii isla fahanay waxyaabaha cuslayn kara appkaasi haddaba maxaa ka dhigi kara appkaas ama website-kaas mid dhaqso badan oo si fudud loo adeegsan karo qodobka ugu muhiimsani waa optimization-ka lagu sameynayo code-ka iyo database-ka in code-ka iyo database-ka system-kaasi adeegsanaya ay noqdaan kuwo kooban si fududna webkaas u isticmaali karayay waxay qayb muhiim ka tahay xawaaraha system-kaasi aynu ku tusaalayno sidii in database-ku yahay maktabad ama library weyn oo kale haddii aynaan bugaagta u kala samaynin qanan una kala habayn sida wada xidhaan ama isku mawduuca u yihiin way adkaanaysaa inuu helno bugaagta aynu u baahannahay sidaasoo kale haddii database-ka uu appkaasi adeegsanayo uusan ahay mid habaysan oo optimized ah waqti ay appkaasi u qaadanaysaa inuu soo helo xogaha uu baahan yahay qodobka labaad ee sida weyn qaybta uga qaadan kara xawaaraha appkaas ama website-kaasi waa caching-ku waa inuu appkaasi ama website-kaasi uu soo dhawaysto xogaha uu sida joogtada u adeegsanayo oo uusan markasta xogtaasi ka doonin database-kii tusaalihii maktabadda haddii soo qaadano waxay jiri kartaa in bugaagta qaar si joogto ah loo akhriyo markaas sidoo kale waxaan samayn karnaa in bugaagtaasi aan dhigno meel dhow oo markiiba qofkii doonayay uu ka heli karo halkii markasta laga dooni lahaa khaananka ay ku jiraan sidaasoo kale caching waa sidii memory oo kale oo wuxuu xasuusnaanayaa qaybaha uu isticmaaluhu sida joogtada u adeegsanayo waxyaana caching-ka la xidhiidha content delivery network CDN waana in xogaha uu serverku haynayo inta la koobi gareeyo la geeyo servers kale oo ku baahsan caalamka kadibna qofkii isticmaalaha marka uu rabo inuu access gareeyo xogtiisii lagu xidho serverka ugu dhow qodobkaasi misla fahanay halkii xogtaad website-kan ama appkan ku dhex adeegsanayso la dhigi lahaa server oo laga yaabo inuu aad kaaga fog yahay tusaale ahaan uu yaallo America waxaa koobi xogtaada la dhigayaa server kale oo yaala bariga dhexe oo kale kadibna qof kasta wuxuu ku xirmayaa serverka ugu dhow habkani waxaa badan adeegsadaa platformyada online-ka ah sida Netflix oo kale ama games online-ka qodobka saddexaad ee isna ka dhigaya in apps-ku ay xawaare fiican yeeshaan waxaan odhan karnaa waa istiraatiijiyada uu appkaasi adeegsanayo tusaale ahaan marka wax soo load gareynayo appkaasi TikTok oo kale markaad wax search dhahdo waxa ku soo baxaya dhowr silsilad oo kaliya kadibna hoos ay u soconaysaa waxaan uu soo load gareynayaa qaar kale oo badan laakiin haddii hal mar uu wax kasta oo la search gareeyo oo search-daas la xiriira soo load gareyn lahaa waxaad dareemi lahayd culays aad u badan sidoo kale badanaa gameska wax laga inaad ku aragto markaad soo dhown karaysto kadib adigo ku dhex jira appkii haddana aad marba lagu dhaho qayb kale soo dejiso haddii hal mar uu soo adeegsan lahayd culays iyo waqti badan ay taasi kaa qaadan lahayd okay muuqaalkiina maanta intaas ay ku egyahay haddii aad tahay developer see projectyada uga dhigtaa kuwa xawaare fiican leh oo aan daahin nagula wadaa qaybta commentiga mahadsanid